niman xildhibaana loogu yeeray oo inta lasoo urursaday oo lasoo qoray magacyadooda oo meel laysugu keenay oo la yidhi soo weesaysta macnaheedas weese maxaad ka garanaysaa waa in la tukada suba laaluush baa laydin siinaya soo weesaysta sidii adii dooran lahaydeen caqligu ma ogol yahay qof inta la yidhi soo weesaysta sidaad khabre u cabto soo weesayso aad khabre cabtid iyo soo weesayso waa ku dhaarinayaa laaluush baa ku siinayaa dadka soomaalida ahi dadkaasay yidhaahaan waana maalan dadka ay doortaan kuwaasina waa kuwa madaxweynayaasha iyo madaxyarayaal maaqa wax la yidhaaha la baxay waxaa laga sugayaa marka maxay yahay dadka soomaalida waad ogtiisa siyaasiyiinta adduunka waxa ay wanaajiyaan laguma mahadiyo maxaa yeelay ayagaaba u yimid inay wax qabtaan soo ma kalsooni dadkayna meesha ku yimaadeen waxaa lagu dhaliilaa oo lagu eedeeyaa waa wixii ay ballan qaadeen iyo barnaamijkii ay shacabka u soo gudbiyeen wixii ay gaari waayeen ama ka xumaaday ama ka qalloocday ama qabyo ka noqday baa lagu eedeeyaa laakiin waxay wanaajiyeen cidi kuma eedayso kuma mahadiso innaga dadkeennaas hadda aan ugu yeeray jooga maqan inta la dilo oo si la rabo loola dhaqmo baan xataa la oran ayaan oran yaana dilay iyo maxaa nala ku dilay waxa weeye marka haddii isaa loola dhaqmo halkaa eeddaas yaa qaadaya yaa eeddaa leh eeddaas yaa la saaraya waxaa weeye dadka soomaalida ahi asagaa mas-uul ka ah waxa ku dhaca iyo meesha ay yaalliin ayagaa isdhigay aar soo dirb jiray neef hadduu daacuftii geliyo oo kaga digsiyo ilkaha dhiigga kaga daasho dugaaggaas yaryari sow kan cunay duugga haray ma macnaa neefka libaxu markuu ka dhirgo waxa kale haadka iyo dhurwaaga iyo dawacad waxaasa cun innagaa isqalnay innagaa halkaa isdhignay in marka cid waliba shanta inala soo gasho dalkeennana meel laga soo gala iyo meel laga baxo aan ka warqabin innagaa halkaa isdhignay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya 33 sano mise 34 sano kadib waa maxay dhibaatooyinka hor yaalla ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan maxaase xal u ah ama si kale haddaan u dhigo waxa weeye 33 sano kadib maanta Soomaaliya meesha ay taalo sida ay u eg tahay muuqaalka ay leedahay maxaa sababay meeshaas foosha xun oo indhaha dunida iyo indhaha Soomaalida iyo indhaha ummadaha dariskeena ah qowmiyadaha dariskeena dalalka dariskeena ah dhinac kasta markii la fiiriyo sawir fool xun oo waliba xagga hoggaanka dowladnimada waxbarashada arrimaha bulshada oo dhan waxbarashada amniga caafimaadka dhinaca walba dayacaas ka jira oo aad u fool xun oo dayaca maxaa keenay weeye waa maxay sababtu maxaa si xal noqon karo see looga bixi karaa dhibaatadaas waxaan marka hore su'aashaas weydiinayaa walaalkeen Cabdirasaaq Sheekh Axmed ku soo dhawow walaal بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكفر حسنا هاي قف أهان أصحابتي أن أسكبر أني دارين كاس هدا وراشي الرغيو إيو ولالكي عينب أي تلمامين inaynu mar kale is aragno inagoo wada joogin isna maqalno aad baan ku faraxsanahay su-aashaas walaashay soo gudbisay raalahada waa su-aal da-weynoo madaxa daalinayso
wixii lagu daweyn lahaa dadweynaha la weydiin. xigmad ah baan soo xusuustay lixdamadii, waxaan jeclahay inay 66kii ahayd, 66dii, markii labadii madaxweynoo dalka markaas, waa igraabkii ciidanka ka hor, aadan cabdulla cusmaan raxmatullahi caleyh iyo cabdirashiid cali sharmaake asagana allah u naxariiso, markay isbedeleen. waxa weeye waa qiso dheer laakiin waa soo koobay. waxaan xusuustaa cabdirashiid oo aad loo jeclaa dagaalkii 4 iyo 7 hadalladu ka soo jeesay dagaalka oo ahayd gacan. doorashadii waxaa soo dhowday 4 iyo 60kii, marka hala joojiyaa la yidhi doorashada. wuxuu yidhi la joojin mayo, gacanna waa ku dagaalamaynaa, gacanna codkaan ku bixinayna. shacarkaasuu taaga ama halku dhagaas. hadalkaasi dadka soomaalidana waad ogtihiin, waa dad cadaalad iyo yani u baahan ama u ooman iyo wanaag. isla waktigaa ku dhowaadkiiba waa isbedelkii dhacay. dowladdii uu madaxda ka ahaa waa la bedelay, cabdirasaaq xaaji xuseen baa prime minister loo magacaabay. kadib muddo 3 sano iyo bar ah ayaa cabdirashiid wuxuu isu soo istaagay madaxweyne. waa ku guuleystay sidii marka loo jeclaa oo caleemaha loo shibaahiyey. soomaaliduna waa iska ogtiinoo hadba wixii yimaado waxaa la moodayaa inuu keenayo qofkaasi xal wax walba oo dhibooto ah oo taagan. wax walba hadda ama dhaqaale iyo siyaasadda hogaaminaysa ayaa saldhig u ah. dadkii waa ka qashuucay cabdirashiid cali sharmaake raxmatullahi caleyh. waxaan marka xusuustaa hees baa lasoo saaray. heeskaas hadda muqadimadiisa idiin sheegay waxaa ka mid ahaa haddii dab ku dhaxamoodo maxaa lagu diiriyaa, haddii biyuhu oomaanse maxaa lagu waraabiyaa, haddii daawadu bukooto maxaa lagu daweeya. waa waxaan macquul ahayn moogta. daawadii inay bukooto haddii xagee daawo looga keenay, dabku hadduu dhaxamoodo see loo diirin karaa. waxa weye waxaa loola jeeday marka waa su-aal da'weyn oo madaxa daalinayse wixii lagu daweyn lahaa dadweynaha la weydiin. macnaha boodka 69 soo socda dowladdaas in la rido weeye macnuhu. halkaa waxaad ka muuqataa dadku weli waa noolaa oo shacbiga hanbaaba ku jiray, ama dadka mu'alifiinta ah oo fakera dareen bayba qabeen dadku inuu waxna dooran karo waxna ridi karo. hadda markaad isbarbar dhigto waktigaas hadda aan joogno iyo waktiga hadda ah, markii hadda Soomaaliya anigu aan tegey oo aan muddo ka maqnaa, waxaan soo dareemay oo arkay dadku inuu yahay jooga maqan. waa joogaa oo haddee dadkii waa muuqdaa, magaalada waa la degan yahay ama magaalooyinka, laakiin dad jooga ma. waxaan uga jeedaa hadda qofka bani aadamka ahi haddii uu garto shacabku in asaga loo shaqeeyo oo dadka madaxda ay u shaqeeyaan oo ay u yihiin waxaa la yidhaha qowsaar. kelmadda hadda ka horna waa isticmaalay. qowsaarku waa qof la jooga xoolo uusan lahayn oo khidmad ka qaata. soomaalida qaar bacay ka dhiga maaha. ninka siyaasiga ah ama madaxda ah waa inuu ku yimaadaa rabitaan iyo doorasho dadkiisa. laakiin hadduu iska yimaado oo uu ku yimaado nooc ah lacag ayaga laga xaday, waa ka xumahay tacbiirtaas inaan sheego, lacag shacbiga laga xaday oo laga dhacay, in qaar ka mida inta lasoo ururiyo oo lacag la siiyo la yidhaaho markaas idinku sanduuqaas iigu rida codka, saasaan idinku xukumayahay. shacbiga saas loola dhaqmaa ama dadka saas loola dhaqmaa, ama xamar ha joogo ama hargeysa ha joogo ama garowga ha joogo ama kismaayo ha joogo ama baydhabo ha joogo, waxaad arkaysaa inuu yahay shacabkaasi shacab jooga maqan ah. waxa weeye marka xaq bay u leeyihiin, ilaa shacbi kastaaba wuxuu geyaa oo u qalmaa oo istaahilaa dowladda asaga uu rabo ama dowladdu istaahiluu helaa. hadduu garto
asaga in khadaam loo yahay ama qowsaar loo yahay oo qofka madaxda u noqonaya ayagu ay leeyihiin inay iyagu doortaan oo u dhiibtaan hoggaanka waxa weeye wixii la rabo oo wanaagsan baa soo baxaya sidii haddaaye uu sheegahayay walaalkay caynab tacliinta caafimaadka wax kasta oo nolosha dhismaheeda ah waa khasab waad ogtiisa siyaasiyiinta adduunka waxa ay wanaajiyaan laguma mahadiyo maxaa yeelay ayagaaba yimid ayagaaba u yimid inay wax qabtaan soo ma kalsooni dadkayna meesha ku yimaadeen waxaa lagu dhaliilaa oo lagu eedeeyaa waa wixii ay ballan qaadeen iyo barnaamijkii ay shacabka u soo gudbiyeen wixii ay gaari waayeen ama ka xumaaday ama ka qalloocday ama qabyo ka noqday baa lagu eedeeyaa laakiin waxay wanaajiyeen cidi kuma eedayso kuma mahadiso innaga dadkeennaas hadda aan ugu yeeray jooga maqan inta la dilo oo si la rabo loola dhaqmo baan xataa la oran ayaan oran yaana dilay iyo maxaana la ku dilay waxa weeye marka haddii isaa loola dhaqmo halkaa eeddaas yaa qaadaya yaa eeddaa leh eeddaas yaa la saaraya waxaa weeye dadka soomaalida ahi asagaa mas-uul ka ah waxa ku dhaca iyo meesha ay yaalliin ayagaa isdhigay hadalkii ruqiye waxaa ku jiray meesha aynu naallo oo soomaaliya taallo yaa dhigay waxaa dhigay shacbiga soomaalidaa dhigay ayagaa isdhigay mithaal baan soo qaadanaya waxaan arkay hadda af soomaaligu waagii hore waddankay ugu dambaysay kelmaddan yaa fiican kuma jirin salaanta hadda qofkaad tidhaaha iska waran waa fiicanahay buu ku leeyahy waa fiicanahay anigu faan baan u aqaanaa waa qof isfaaniyey oo yidhi anigu waa fiicanahay kelmadda hadda waxaan kelmadda usoo qaatay kelmad la yidhaaha kaalay arag baa hadda mujtamaca soomaalida markaan tago aan arkay aad ii dhibtay waxaa lagu kelmaddaas ay ku qiyaasaan hebel kaalay guryaha uu dhistay arag kaalay arag hebel lacagta uu dhacayna kaalay arag hebel siduu wax u laayey kaala arag waxaa faan noqday oo wax ku faaninaya kuwii la dhacay oo la dibandaabiyeeyey oo la xaqiray oo la ihaaneeyey oo kelmadda xumaan oo dhan marka la yidhaaho dadkii lagula dhaqmay ba waxay bixinayaan shahaadooyin ah kaalay arag hebel siduu u dhaqmay oo faan baa laga dhigaya waxa weeye marka meeshaas dadka soomaalida isagaa isdhigay haddii ay dhacdo marka ilaa waa virus baa ku dhacay dadka soomaalida ilaa bah tegaysa haddii la soo rogo oo kor loo soo qaado loo taago inay ilaa heer qaran ku socoto halkaa rajaa ka jira dadka soomaalidahay waxa uu ku jira inuu ka baxana waa suuragal ilaa iyo intaa saas tahay waxay noqonaysaa fadhiidkaasay noqonaysaa soomaalida dadka soomaalidana iyaga halkaa isdhigay madaxda waxaa la ii sheegay oo aan arkay aan maqlay maalina weyd niman xildhibaana loogu yeeray oo inta lasoo urursaday oo lasoo qoray magacyadooda oo meel laysugu keenay oo la yidhi soo weesaysta macnaheedas weese maxaad ka garanaysaa waa in la tukada suba laaluush waa laydin siinayaa soo weesaysta sidii adii dooran lahaydeen caqligu ma ogol yahay qof inta la yidhi soo weesaysa sidaad khabre u cabto soo weesayso aad khabre cabtid iyo soo weesayso waa ku dhaarinayaa laaluush baa ku siinayaa dadka soomaalida ahi dadkaasay yidhaahaan waana maalan dadka ay doortaan kuwaasina waa kuwa madaxweynayaasha iyo madaxyarayaal maaqa wax la yidhaaha la baxay waxaa laga sugayaa marka maxay yahay dadka soomaalida inuu meeshaas yaallo oo kelmadihii aad tiri qofta la yidhaaha ruqiyoy dadkaa inala yaaba iyo ummaduhu waa inala yaabaan ama waa layna ku sheekaystaa waxaa weeye halkaa waxaa isdhigay qaranka xalka marka la yidhaaho waxaan u daynayaa saaxiibadayda kale haddee xalku wuxuu u baahan yahay cidda wax xalinaysa inay wax garatay soo maha waxay u baahan tahay cidda wax xalinaysa oo xalka laga sugaya oo inay wax xalisa la raba inay wax garato soolaanga ama ilaa iyo inta aan garasha jirinna xal ma imaan karo
waxaan ka xumahay hadalkaygu inuu adag yahay, waxaan ka xumahay in aan ka ugu hormaray hadalka aniga ragga ruqya xoogaa imiiraysay oo waxaan rabay anigu markii ragga kala hadlo iyo gabdhaha kale halkaasaan rabay inaan galo maaragtay, laakiin hadda waa ka xumahay in hadalkayguna taagtaagan yahay. wixii aniga niyad wanaag bay iga tahay, shicaarkeennuna wuxuu ahaa ama halku dhegeennu waxna dooni mayno, cidnana waxna dooni mayno. waxaa weeye intii tabarteennu tahay liinta inta ku jidha laga tuujiyaa, maskaxda yadu inta ay qaado waxaa laga tuujinaya waxa weeye soomaalinimo, islaamnimo, midnimo. gobol kasta oo dalka ka mid oo hadda puntland haddaan sheegay, midnimada puntland iyo wadajirka puntland soomaaliya faa'iide u yahay. meel kastoo soomaaliya waxaa ka jiro wanaagihiina meel kastoo soomaaliya u yahay wanaag. waxa weeye ha ahaatee ninkii geedka igu arkay allow uusan guriga igu arag bay taagan tahay. magacyaas hadda la sheegayo oo laanlaanka la leeyahayna gablan, mid waliba waa gablan iyo rajo. hadalkayga halkaasaan kusoo ururinaya, wixii dambe oo xalka iyo haddii odayaasha iyo gabdhaha la wadaagi doonaa. waa mahadsantihiin. weli waxaan ka cudurdaaranayaa wixii aan ku aadanayn munaasabadan oo haddii hadalkayga gashay waa ka cudurdaaranayaa. ninana kuma mathilo, aniga igu koobantay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan iska iloobay oo aan rabay inaan ku daro, allaha u naxariista cabdirashiid markuu dhintay waxaan bartay muddo kadib nin golihiisa wasaarada ka mid ahaa, golihii wasaarada oo markaa madaxweynaha ka ahaa, weliba si gaarana xiriir ay u lahaayeen oy xidid ahaayeen. wuxuu ii sheegay markuu dhintay 3,000 oo shilin baa koontadiisa laga helay. waxaan rabaa marka in la isbarbardhigo 3,000 oo shilin ragga maanta madaxda inoo ah, ama wasiir ha noqdeen, ama madaxweyneyaal ha noqdeen, ama maarayayaal ha noqdeen. waxaan hubaa haddii la yidhaaho qof ka mid ah lacagta aad dalka ka urursatay intee tahay, nin madaxa ku haya inuusan jirin. hadduu buug ka qoray inuu buug ka fiiriya maaha. halkaa marka waxaad isbarbardhigtaan 3,000 oo shilin madaxweyne 4 sano iyo barna prime minister soo ahaa, 2 sano iyo 3 sanona madaxweyne asagoo aan dhintay, 3,000 oo shilin baa laga koontadiisa. ragga maanta inoo joogo madaxda inoo ah oo shacabkeenu kaala fiiri u bixiyey, oo nairobi iyo abudabay iyo maxaanku idhahaa markaad tagto laleeyahay kaala arag hebel baale iyo hebel baale oo shacabku ku faaninayo. haddaad isbarbar dhigtaan marka, bal idinku waxaad yeeshaan halkaas waxaad ka akriyeysaan dadka soomaalida ee maanta meesha uu joogo. kelmaddii ahayd meesha uu yaallana yaa dhigay, asaga ayaa isdhigay halkaas. cid ay eersanaysaana ma jirto. haddii la yidhaaho marka qaar baa waxay yidhahan etoobiyaan iyo maraykan iyo dad baana dhig gabay waxaa jira wuxuu ahaa aar soo dirb jiray neef hadduu daacuftii geliyo oo kaga digsiyo ilkaha dhiigga kaga daasho dugaaggaas yaryari sow kan cunay duugga haray ma. macnaa neefka libax markuu ka dhirgo waxa kale haadka iyo dhurwaaga iyo dawacad waxaasa cun. innagaa isqalnay, innagaa halkaa isdhignay in marka cid waliba shanta inala soo gasho, dalkeennana meel laga soo gala iyo meel laga baxo aan ka warqabin. innagaa halkaa isdhignay. waa mahadsantii.